maanta waxaan sugu nimaday in baryahan dambe sida aad socotay dalka waxaa ka socday colaado beeleed gobollada qaarkood iyo deegaanada qaarkood ka socday colaadahaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badan dhibaatada ay dadka shacabka deegaanada u geysteen aad ay u badan yihiin marka hore waxaan rabnaa inaan ka tacsiyeyno dadka ku geeriyooday colaadahaas aad baan uga xunnahay inta ku dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo dawladuna wixii ay ka geysan karto way ka geysanaysaa maanta marka waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo gaar ahaan deegaanada colaadahaas ay ka jiraan kuwa ku nool shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan iyo meel kasta kale oo dalka Soomaaliya ka tirsan oo colaad qabali ah ay ka jirtaay waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in horta colaadahaas la joojiyo 20 sano in ka badan oo colaad sokeeya kadib wali inay dad u siixiisa qabaan in ay dhiig walaaleed ay daadiyaan waa arrin aad iyo aad u xanuun badan dawladuna ay aad iyo aad uga xun tahay waxa kale oo intaas dheer dadka colaadahaas hurinaya kuwa ka shaqeynaya kuwa ku saacidaya dhamaantood waa dad nidaamka dawladnimada nabadeynta dawlad dhisidda horumarka maanta dalka ka socdaay iyo soo kabashada dawladnimada Soomaaliya dad runtii oo si uga soo horjeedo oo rabaan inay si u hakiyaan marka siriqdaasna loo dhigayaa dadka Soomaaliyeed waa inay fahmaan oo ay ka tilaabsadaan oo aanay ku dhicin siriqdaasi runtii colaadaha qaarkood dadka yaani nabadeynta iyo cabsida ay gelinayso markii ay nabadda arkaan dadaa jira cabsanayo oo nabadda ka baqayo oo maxaan ku yiraahdaa ka cabsanayo muxuu ahaa deganaanshaha iyo horumarka dadkaasi waxaa marka ka faa'iideysanaya oo dhaxgalaya kuwa sidoodaba leh ajandaha ah inaan dalka nabadi ka dhicin dawladi ka imaanin deganaanshiya aanu imaanin horumar aan la gaarin kuwa sidoodaba ajanda ay u tahay ayaa ka faa'iideysanayo walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka waxaan leenahay iska ilaaliya yaan lagu kadsoomin kuwaasi in ay dadkeena inta dhax galaan ay colaada ay ha u arkin ninka kula haya reer hebel hadaatiina waa laga gardanaya waa ku saacidaya waxayna waa laga gardanaan karaa laakiin xalka gardarnaanshahaasi qore ka inta qaadatid inaad dagaalantid ma aha waa la isdagaalaya waa la isdilaya dad badan dhimanayo hanti badan baa baaba'aysa markaas kadib la heshiinaya oo la wada hadlaya marka inta aanay wax dhimanin ha la wada hadlo dawladuna waxay diyaar u tahay inay fududeyso wada hadalladaas iyo kuwa fidna wadayaasha dadka ku dhex jira inay qabato intaba in aan la jeclaysanin ninka fidnada wada ee colaada horseedaya ee wax dilaya in wax la dilo in wax la barakiciyo sababayahay cudurdaar ma laha marka waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan gaar ahaan deegaanada dhibaatadu ay ka socoto dadweynaha ku nool inay dawladda garab istaagaan inay dawladda maxaan ku iraahdaa ku garab istaagaan xalinta iyo dejinta colaadahaas aad iyo aad ayaan uga xunnahay mar walba inaan maqalno dhawaqaas colaadeed ee baxaya dad Soomaaliyeed oo barakacaya dad Soomaaliyeed oo dhibaatoonaya waxa la isku haystaana wax aanan qoray lagu xalli karin ay yihiin haddii dhul la isku haysto haddii aana qabiil la isku haysto haddii hanti la kala dhacay la isku haysto haddii qabiil iyo isla weynaan qabiilku uu qabo la isku haysto waxaasi wax ay xalliyaan muxuu ahay colaado iyo dagaal ma aha dawladda Soomaaliya raalli kama aha raallina kama ahaan karto waxa socdaay shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis inta nabadda iyo horumarka iyo jacaylka dawladnimada saaxiib ah dawladdu waxay ka codsanaysaa in lagu garab siiyo waxaan fududeynaynaa nabadeynta dib u heshiisiinta iyo wada hadalka waxaan ka hortegaynaa oo qabanaynaa kuwa fidna wadayaasha ah oo colaada ka shaqeynayo waxaan rabnaa shacbigu inay nala gartaan kuwaas inaanay reer hebel noqonin reer hebel oo muxuu ahay loo dan leeyahay inaanay noqonin waa fidna wadayaal dawladuna talaabay ka qaadi doontaa dhammaan dawladuna arinta colaadaha socdaa dhinacay ka tahay waa ka soo wada jeedaa ka soo horjeedaa waana u wada taagan tahay haday baarlamaan leedahay iyo haday xukuumad leedahay ba intaba wax garadka maxaan ku raadaay indeer garadka odayaasha dhaqanka nabadoonnada bulshada inteeda kalena waxaan ka codsanayaa dawladda in lagu gacan siiyo propagandada iyo waxyaabaha ay cadowgu isticmaalayaan iyo siriqda ay noo dhigayaan waa inaanan ku dhicin on ka tilaabsanaa oo aan u gudubnaa nabadeynta iyo wada hadalka iyo dawlad dhisidda dalka inaan dawlad shaqeynaysa ka wada dhisnaa u soconna
in caqabadahaas jidka noloo dhigahay waa cadowga ujeedadiisa aan garanno aan sidaas uga saabsano mar kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed intii colaadaas nooga dhimatay aad iyo aad aan uga xunnahay waa ka murugoonaynaa waa tacsiyaan u diraynaa eheladii dadkooda ku weysay kuwa dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo kuwa barakacayna dawladdu sidii ay guryahoodii ugu celin lahayd iyo deegaanadoodii ayay u taagantahay ka shaqaynaysaa aad iyo aad ayaanan mar kale dadka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa nabad iyo walaaltinimo ee wadajir aad iyo aad u mahadsantihiin